nin ayaa wuxuu saaxiibkii ka doontay deyn markaasuu ka cudur daartay wuxuu yiri saaxiib aniga deyn ma haye nin baa kuu tilmaamaya ninkaas deynta kasoo qaado ninkii loo tilmaamay wuxuu ahaa nin taajir ah ninkii buu u tagay markuu sii socdo oo ninkii og dhow wuxuu arkay ninkii oo lax bugto daaweynay markaasuu asoo fiiro wuxuu yiri ninkaan laxda bugto daaweynay oo ari badan qaba waxba kuma stinaayo baqiil markaas ku gaareen isaga laab oo isaga soo laabtay saaxiibkiisa ku soo noqonay wuxuu yiri ninka soo lax bugto daaweynay arkay ninkaan waa baqiil inuu soo wax bixinay baa umaleen soo ari badan u joogo oo lax daaweynay kaas wuxuu yiri ninka kuma ngoobi sida ku laabto markuu laadana wuxuu maqlay ninkii oo dhahay taajirka ah dhahay xaruurka dhulka ku dhaco masigada marka badan la beero waxay leedahay mareeyada moogtahay xaruurkaas wuxuu dhulka ku goro soo kula dadaama wuxuu dhahay xaruurkaas dhulka ku dhaco gurbiya xabad u qaada macna waxba ha ka tagin yaa wadaninkii deynta qaada rabi xusna bismillaah kan hadana beer weyn leh oo beerta intuu soo gurto masigada intii yar saxad ku dhacday xabad caruurtiis ugu dhahay baqiilimo waa dhaafto xiisay wax kuma doonay uu laabto hadana saaxiibkiis uu tagay oo wuxuu ninka sidaas aan ku soo arkay ninkaasina wax siinay ilmaha hore wuxuu yiri kuma goobaysid hadana ku laabo markii saddexaad soo laabtay markii saddexaad wuxuu maqlay soo gabdhiis ku dhahay ninka taajirka ah faynuusta iftiinkeeda gaabiya si shidaalka idin kaga dhamaanin dhaqso asoo markaas dhahay ninkii albaabkii furay ninkan meesha taagan u arkay ninka meesha taagan arkay yiraahday maxaa ahayd ninka wuxuu yiri aan run baa ku sheegaaniyo saaxiib wuxuu yiri run baa ku sheegaya markaan waa markii saddexaad ee aan wuxuu yiri aan imaado marka koowaad waxaan arkay yiri adoo lax bugta daaweynay markaas isdhoolay ninkan arigan badan leh lax daaweynay diin kuma sina isaga laab markaas wuxuu yiri lax bukan ee daaweynay laxdan wuxuu yiri oo ku soo caanamaalnay lax fiican oo caanaheeda cabi jirnay oo noo dhaqmi jirtay marka maadaama maanta ay xanuunsan tahay kuma abaal dhacayno saas u daaweynayay oo aan u gooricin u dhah markaas yiri marka labadan ku imaanayna waxaan ku arkay adoo dhahay haruurka ku dhacay mid ha loo guro waan yaawo dhah wuxuu yiri waxaan mid ha loo guro waxaan u dhahay waxaan rabay inay ilmahayga baro nimcada inay ka mahdiyaan nimcada ilaahayna siiyay inay macnaha ka mahdiyaan oo xabad kasta macnaha mid walba qiimaheeda inaan baro sidoo kale waxaan ku arkay adoo ku dhahayo marka saddexaadna wuxuu yiri waxaan arkay adoo dhahayo gabdhahaaga shidaa faynuus yareeya soo shidaalku dhamaan wuxuu yiri sax waayo dhahay gabdhahayga aniga hadda aabood baa gabdhahayga wuxuu yiri hadda nolol fiican bay ku nool yihiin laakiin bari kamaal marka la guursado dhahay nin walba guursan karo nin wax haysi inuu aan waxaysanin waxaan ugu talagalay nolosha sina u diyaariyo gabadhii nolosha ku adkaata xataa si wax u dhaqaaleysan lahayd inaan baro ninka marka danta u lahaa uu gudu deyntii uu siiyay uu nalaabtay sheekada maxaa ka baran karnaa in wax walba sida aan aragnay aan u qaadan ee jiri kana waxyaalaha qaar in sida u muuqato si ka duwan qofkaas uu sameeyo. Assalaamu calaykum.